dumarku waxay jecel yihiin inay ku noolaadaan jawi romantic ah marka guur loo bandhigayo. haddaba marka aad ku fakarayso inaad guur usoo bandhigto lamaantaada qaali kugu ah oo doonayso in aad uga farxiso, waxaa laga maarmaan ah inaad arrimahan qaar kusii baraarugsanaanto si maalintaas u noqoto mid xasuus leh oo aan ka goyn qalbiga lamaanaha aad jeceshahay. waa sida uu qoro website-ka WikiHow. marka hore hubso inay tahay gabadhii aad koriyoonaysay in kale. waxaa dhici karta inaad muddo kaa soo baaraandegaysa inay tahay gabadhii aad in muddo kuriyoonaysay, laakiin waxaa muhiim ah inaad jeceshahay oo aad aaminsan tahay inay tahay gabadhii aad kuriyoonaysay. ku fakar wax walba oo kugu riixay inaad guursato. arrintaasi muhiimad weyn ayay ku tahay. marka aad guurka usoo bandhigayso u sheeg jaceylka aad u hayso heerka uu gaarsiisan yahay. waxaa waajib ah marka ay lamaantaada ku aragto inay xaqiiqsato inaad dhab ahaan u doonayso guurkeeda iyo inaad nolosha la qaybsato, lana gaaro waqtigii ku habboonaa aad u sheegi lahayd inay noqoto rafiiqaaga nolosha. waqtiga munaasabka ku ah eego. waxaa muhiim ah in waqtiga uu yahay mid munaasab ah sida guurka u bandhigto xilli aad degdegsanayn oo aad xasilooni dareemayso oo aadan kala daadsanayn isla markaana aad diyaar u tahay. xulo maalin idin gaar ah. inaad guurka u bandhigto waxay ku habboon tahay maalmaha farxadda sida ciidaha, dhalashooyinka. maalmaha markii horeba iska bilnaa ee quruxda badnaa ayaa iftiin kusii kordhin karta. waxaaba kasii fiican marka qoysku hareerihiina joogo oo farxaddiina idinla qaybsan karo. diyaari goobta aad guurka usoo bandhigayso. goobta, maalinta iyo jawiga ku hareersan bandhiga guurka weligii lama iloobo. adigaana ah qofka jawiga diyaarinaya. sidaa darteed waxaa habboon in goobta ay noqoto mid macno kuu sameynaysa oo aad ku dareemayso nafis, xasilooni oo leh muuqaal soo jiidasho badan. go-aanso habka aad guurkaaga usoo bandhigayso. waxaa iska caadi ah inaad sii diyaariso faraantigii doonashada. waxaa waajib ah inuu noqdo mid qaas ah oo si wanaagsan aad usoo xushay. waa inuu noqdo mid romantic ah oo gabadha si weyn usoo jiita. habka usoo bandhigayso waxaad ka dhigan kartaa sida caada ahaan loo badan yahay inaad jilbaha dhulka dhigto aad usoo jeediso. ma aqbalaysaa inaad xaaskayga noqoto? wadiiqada dadku badanaa way yaqaanaan oo aflaanta ay ku daawadaan. noqo qof hal abuur leh haddii aad doonayso habka loo baahan yahay ee bandhiga guurka. waxaa waajib ah inaad soo xirato dharka kugu wanaagsan. waxaa wanaagsan inaad soo xirato dhar cusub. waxaa ogaataa inay tahay munaasabad gaara oo ay habboon tahay in sawirkeeda guud uu noqdo mid dhammaystiran oo wax qalad ah aan lahayn. waana qaabka aad samayn lahayd marka aad ku fikirayso inaad gabar aad jeceshahay guur usoo bandhigto.